waasha mahadsan tahay in badanna waan ku celceliyey khilaafka horta mid shaksiya ma aha mid niman dadkaan loo saaxiibaha iswada yaqaana taariikh wada leh soo wada joogay dowladda kasoo wada shaqeeyey muddo hadda soo wada shaqeynayo 2 sana weeye ishuga ugu weyni oo aan sida aan qiyaasi kale isku haya waxa weeye isfaambaro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka oo ah sida waxaa loo yaqaano center and periphery oo ah dowladii dhexe iyo goboleedyadii awoodaha see loo qaybsanayaa resourceka see loo qaybsanayaa dhismaha dowladnimo federalismka qofka wuxuu ka aaminsan yahay dabcan dowladda dhexe markasta oo qofka uu joogo wuxuu isu burinayaa mar walbaaba in dowladii dhexe ay awoodda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay maxaa la yidhaahdaa saas daraadeed ay tahay wax kasta in looga dambeeyo dhanka kale markii dowlada federal la joogo dowladaha xubnaha dowladda federaalkuna ay leeyihiin waa mas-uuliyad gobolka anaga nagu dhexaysa puntland baan joognaa 1200 kilomitr oo soomaaliya ayeeye markii galaxyo laga soo bilaabo ilaa caloola aad tagto intaas mas-uuliyadeeda anaga u dhexaysa baahideedii caafimaad waxbarasho biyo amni marka dowlad hadda dhexe oo intaa naga kaabaysa oo nala qaybsanaysa caafimaadkeydii wax ka geysanaysa gacan waxbarashadii ka geysanaysa amnigii wax nagu taakulanaysa ma ay jirto sidaas daraadeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awoodii dawliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah mas-uuliyadiina idinkaa leh oo haddii macalimiintiinu ay mushaara waayaan haddii askartiina ay raashin weydo haddii shaqo kuma lihin dhibtu taa weeye waxyaabaha masalan kuu sheegaya dowladda federaalka maalba waxay tidhaahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha iyo civil service waxay ka hadlayan waxa weye shaqaalaha xamar jooga shaqaalaha marka puntland jooga midka jubbaland jooga midka southwest jooga midka jooga mataqaana hirshabeelle waysan shaqaalii dowladda ahayn waxay oranaysaa mar kale ciidamada yada maaragtay ilaa december mushaarkooda waa bixin haye waxaa laga hadlaya s n a da joogta inta udhexaysa jowhar iyo markamiyaa laga hadlaya jooga marka waxa weeye waxaa la isku hayaa waxa weye essenceka laisku haya waxa weeye waa nidaamka federalismka waxa laga aaminsan yahay iyo awooddaas iyo mas-uuliyaddiisa loo qaybsanayo waa gartay dowladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dowladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay kamid tahay ciidamada arrimaha dibadda waxyaabo badan oo noocaasiya lacagta wadanka uu yeelanayo marka adinkii laftirkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aad la samaysanaysaan in aad raadinaysaan waxyaabo dastuuriyan aadan xaq u lahayn ayada oo dhinaca kaleetana dowladii dhexe ay joogto oo sharciyan haddii la wada aqoonsan yahay dowladii iyo dastuurkiiba inay shaqaynayaan haddana adinkii aad wax faramarooqsanaysaan sida laydinku tirinayo maya walaashay adduunka wadamada federaalka madaxweynihii anigu waxaan ka nimid dowladda federaal waan ka nimid oo maraykan la yidhaahdo gubernatoriyaasha maraykanku wadamay tagaan oo iga soo galaan heshiisyo laakiin de dowlad dhexe heshiis ma soo galaane wadamadaasay tagaan kameriya heshiis la galaan gubernatoriyaasha gobolada kale arkaan oo dhigooda ay la sheekaystaan oo wadeen xamaraan micnaheedu maaha anigu haddaan jaa in aado bahalkii in anigu madaxdii dowladda aan leeyahay marka waxa weeye micnaheedu ma aha dowladda federaal haddii dowladda tahay qofka banaan ma aadi karo statekiisa maalgelin uma raadin karo ganacsatadiisa suuq uma raadin karo maaha micnaheedu waa garta waxa weye adinkusa uma shaqeeyo marka kamana caagana inuu ka bixi karin inta udhaxaysa madaxweynaha puntland inuusan dhaafi karin maaha inta udhaxaysa kaalkacyo boosaasan way waxaa jirta in guddoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilki ka tegay madaxweynihii koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan aragti ahaan seed u aragtaa hanaanka ay marayso maanta koonfur galbeed iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiinii qayb ahaan golihiinii iswata ee maamul goboleedyada qayb ahaan ee durbaba muuqata inay meesha ka baxday oo tiro yar kusoo haraysaan hore waxaa u baxay madaxweynihii hirshabeelle hadda waxaa ku xigay kii koonfur galbeed marka seed u aragtaan taasina horta dirka jirta waxay tahay xeebaan ka hadlaya kamid tahay waxyaabihii laga kombarin garanayo dadku ay cabashooyinka laga hadlaya kamid ahay in dawladda rabo in ay dalka hogaamiso oo ay badbaadiso
oo ay isu keento oo midnimo ka shaqaysahay waxa weeye dawladda samaynaysa weliba halkan wuxuu ka hadlayay resourceska dowlad goboleedyada iyo maxaa u muuqan waayeen iyo in resourceka dawliga ah loo isticmaalo in dadka lagu corrupt gareeyo in baarlamaankiisa koonfur galbeed suu dhamaa inta xamar la keeno inta la dejiyo videosha ku aragteen suuqa la qaybiyo lacag ilaalusha la siiyo mataqaana waxaa la yidhaahdaa dhaqaalihii dawladda baaburi iyo diyaarado iyo rufiya lagu geeyay meesha la yidhaahdo baydhabo waxa noocaasi oo galeerinka oo dadka dhan ay ujeedaan haddana laga hadlaayo musaas baan la dagaalamaynaa iyo dawlad fiican baa nahay iyo Facebook iyo social media laga. Haddaan ku weydiiyo hanaanka maamul goboleedyada doorashooyinka uga socdaan wasaaradda arrimaha gudaha soo xaq uma laha soo wasaaradda arrimaha gudaha ma ahan inay la socoto siday wax u jiraan ka sokow musuqmaasuqa hadda ku eedeysa adiga aad sheegtay marka laga soo tago soo ma banaano walaashay wax shaqaa xagee ugu taallaa shaqadaas ugu qoran tahay in doorashada ka dhacaysa doorashada ka dhacaysa Puntland waa doorasho local ah dadka Puntland ay samaysanayaan